أنا وحن مالي رمبا كواركي ووزيرك هذا الكيسود بي وكذا واجي إلا سؤال آخرين ويسقبها عن تاي بل إنه ميزانية ده إنه نوفا فهي سؤالها كفر النوي تاي إلا دقن قليو قانون كان كله دقالها يوقبها عن تاي دولة إيه ماشى وكي معنا يو ما دام ما ركتي ميزانية دينا لا انسحيي إنه نوفا فهي ماشى طلبات waxaan ku arkay meelo badan oo nabad iyo nolol ay ku qoran tahay dawladda nabad iyo nolol anigu dawlad nabad iyo qaanuunkan qaanuun waaraya oo dalka Soomaaliya la rabo inuu ka shaqeeyo boqolaalka sano oo soo socota waa dawladna lama yiraahdo dawladda Soomaaliya aan u waqaana laakiin dawladda nabad iyo nolol wasiirku meesha uu ka keenay ayaa rabnaa iyo dawladdaas dawladday tahay anigu ilaa dawladdii hay'adihii baarlamaanka ka tirsannahay magacaasna iskuma naqaano marka hadduu ula jeedo xukuumadda ama halku dhig waqti gaar ah soconaya laakiin dawladda nabad iyo nolol meelay ka jirtaan oo ma aqaan dawladda Soomaaliyana waa ka tirsanahay marka waxaan rabnaa qaanuun waaraya oo ummadda Soomaaliyeed boqolaalka sano soo socota u jiraya in halku dhigyo koox markaas xukunka haysata halku dhigeeda in lagu qoro maahan aniga aragtidayda marka in meelahaasna laga saxanaamisana waa maasantii su'aasha labaad uu xildhibaanku na weydiiyay ku saabsan eriga nabad iyo nolol horta marka hore kuma jiro meel qodob kamid ah sharciga kuma jiro hal meel kaliya uu kaga xusan yahay buugan oo ah warqadan qornay anigu aan qoray ee golaha wasiirada ugu gudbiyay oo aan leeyahay wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu oo gudanaysa waajibaadka qaran ee ay u xil saaran tahay isla markaana fulinaysa siyaasadda dawladda nabad iyo nolol ee ku wajahan kobcinta dhaqaalaha waa warqadan anigu qoray marka halka kale kaga xusan tahay sharciga qodobada kama mid aha taasna ereyga nabad iyo nolol waa sharci waayo halkan markii xukuumaddu keentay barnaamijkeeda ayay ku xustay barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol baarlamaankanina waa ansixiyay ereyga marka ama kaas u baan xigtay oo yiri barnaamijkeedii baarlamaanka la horgeeyay anoo ka duulaya sharcigaana soo gudbinayna golaha wasiirada soo gudbinayna marka ereygaas halkaas uu ka qoray sharciga meelna kaga ma jiro waa okay taas waa taas ereygan dawladda iyo xukuumadda waxay u baahan tahay fasiraad hor leh bay u baahan tahay oo erey bixinta in lagu heshiiyay u baahan tahay wax badan oo inaan ayay u baahan tahay ugu dambeyntii taasna halkaas aan kaga jawaabay si kastay tahay kama tirsana sharciga ereygu kama tirsana loo keenay waxa waay in la arko la fiiriyo wixii qaldan la saxo wixii wanaagsan la taageero wixii ka dhiman lagu daro intaas waa waxa loo keenay xildhibaanadana xaq ay ugu leeyihiin fikirkooda inay ka dhiibtaan adinka laftiin wax lidinku kordhiyo xaq ay u leeyihiin kelimada hadda oo fiqi ka dhawaaji dowladda nabad iyo nolol ma waa la qabaa ra'yigaas xukuumadda hadda aysan xukuumadda nabad iyo nolol iska dhaxad adinka laakiin dowladda nabad iyo nolol ma dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka taas waa la qabaa fiqi oo ku mahadsan yahay